السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada channelkeena iyo muuqaalkeena maanta oo ah casharkii saddexaad ee koorskeena Introduction to Cybersecurity. Hore waxaan uga soo hadalnay waxay yihiin data breach iyo cyber threat. Maanta waxaan ka hadlaynaa sababaha keenay inuu dhaco hacking. Sababaha ugu waaweyn ee uu dhaco hacking waxa ugu muhiimsan afar sababood. Tan koowaad waa in la xado dhaqaale ama lacag. Waana mid ka mid ah sababaha ay u dhacaan hackingku. Malaha halkii dhalinyarada Soomaaliyeed ka qalad fahmin hackingka oo maleeyaan in markaas la soo hadal qaadaba bangi la dhacayo in la dhaco lacag waa kaliya taa mid ka mid ah sababaha ay black hat hackersku u sameeyaan hackingka oo tuugnimo shaar kale oo loo xiray. sababta labaad ee iyana wax loo hagareeyo waa xadida xogaha sirta. koox ama qof hackers ka xun ka mid ah waxa uu dabagal iyo tixraac ku sameeyaa cid la taageerayo ama la rabo in xogta laga dhaco. xogtaas waxay noqon kartaa sida password ama access uu qofkaasi leeyahay. moogtahay in la xado xataa macluumaadka aad malaynaysa yihiin kuwa iska simple ah sida designada alaabaha waa shirkadu ku tartamaan. laga yaabay in shirkad yar oo design fiican la timi ay shirkad weyn ka xado oo suuqa kala wareegto sidii ay samaysay shirkadda Apple oo qaar ka mid ah saacadaheeda Apple ku dartay feature ah blood oxygen level kaasoo original ahaan laga soo xaday shirkadda Masimo oo ah shirkad ka shaqeysa tiknoolajiyada caafimaadka. waxaana ka mid ah sababaha loo hagareeyo hacktivism oo ah in lagu shaqeeyo doonitaanka cid gaar ah. يعني tusaalahaan dowlad ku jirta xilli doorasho waxay shaqaalaysiinaysaa koox hackers ah si ay u khalkhaliyaan nidaamka doorasho iyo tirinta codadka iyo waxyaabahaas oo kale. ama waxaa loo adeegsanayaa in lagu curyaamiyo ama culus la saaro websites. hacktivism mar kale waxa uu shaqeeyaa fikrado iyo ideolojiyo ha noqoto mid wanaagsan ama mid xun. sababta afraad ee u dhacaan hackingisku waa fan. marar badan waxaa dhacda in hackerska xun ay ku tartamaan inay waxyeeleeyaan system iyagoo doonaya in loo aqoonsado koox jirta. faankaasi wuxuu sababi karaa inay gebi ahaanba curyaamiyaan ama dhulka geliyaan system. inta haddaynu ka nimaadno sababaha dhacda hackingisku waxaan ku xisaynaa noocyada hackerska. noocyada hackerska aynu qaybino 3 qaybood. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa script kidders, qaybta labaadna waxaa loo yaqaanaa hackers iyo qaybta saddexaad waa organized hackers. qaybta koowaad ee script kidders waa keliyata waxay aqaanaan basicska hackingka wayna ku cusub yihiin saaxadda. waxay isticmaalaan waxyaabo badan oo online laga heli karo sida codes ama toolska hackingska mana samayn karaan waxay iyagu leeyihiin. waxay u adeegsadaan waxyaabaha inay wax ku yeelayaan cid ama system. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa hackers waxaana loo qaybiyaa 3 nooc. nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa white hat hacker, nooca labaad waxaa loo yaqaanaa black hat, nooca saddexaadna waxaa loo yaqaanaa grey hat. haddii ku horeyno white hat waa kuwa u adeegsada hackingka inay dhanka wanaagga iyagoo sameeya waxa loo yaqaano ethical hackingka ama hackingka akhlaaqda leh. qoladan waxay dagaal aan dhammaan lahayn kula jiraan cid kastoo rabta inay si sharci darro ah ku qaataan xog aanay lahayn. white hat-ku waxay systemka ilaalinayaan galaan iyaga oo authorized ah ama loo ogol yahay inay galaan. waana nooca ugu wanaagsan haddii aad rabto inaad noqoto cybersecurity professional. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa grey hat. grey hat hackers waa nooc u dhow white hat-ka balse waxay kaga duwan yihiin inaysan gelin systemka iyagoo loo ogol yahay inay galaan oo intay jabsadaan ay soo ururiyaan guduleelada meelaha ay ka soo galeen kadibna waxay xogtaasi la wadaagaan cidii systemkan lahayd oo ay lacag kaga qaataan. nooca saddexaad waa nooca khariban ee loo yaqaano black hat-ka waxaana nooc shayaadiin ah kuwaasoo u isticmaala hackinka inay wax ku dhibaateeyaan oo dadka ku dhibaan. waana tuugta digitalka mana ahan kuwa akhlaaq leh. badanaa dhalinyaradu waxay u maleeyaan in kuwaas oo keliya ay jiraan balse waa nooc khariban mana wanaagsan inaad ku fakarta inaad noqoto. qaybta saddexaad waa organized hackers oo ah hackers group ah oo u shaqeeya markiiba dhinkii loo jeediyo. waxay noqon karaan kuwa dhanka wanaagsan loo isticmaalo iyo kuwa dhanka xun loo isticmaalo. waxaana lagu bixiyaa dhaqaale aad u badan waxayna qabtaan shaqooyin cayiman oo specific ah. waxaana badanka isticmaala dowladaha iyagoo isticmaala inay soo ururiyaan xogo sida sirdoon oo kale. casharkee maanta intaas ayuu ku leeyahay dhalinyaro waxaan rajaynayna soo fahnay mawduucyadaan ka hadalnay waxaynu ugu xigi doonaa noocyada malwareska iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. aad ayay mahadsantihiin. assalaamu calaykum.